وحويان كبدن وحيالها قاونانتا يا دقن حمانتا وحويان ورنتي أرن آدي هذا فولحن ويا أنا قروح بدن دينتي أنا وحويان أنا كوبنانين وحن تاي مركا فرينتا عندي يا ولا ليال لو ذا يدك مسلمين تا أمد الصوماليات dhaqankeena suubana Soomaaliyeed iyo diinteena Islaamka midna sax kuma aha midna kuma banaana waa inaynu ka digtoonaano arintaas ka bilaabanaysa hadda magaalada Hargeysana waa inaynan daawashadeedu waa xaaraan faafinteedu waa xaaraan dhiirigelinteedu waa xaaraan meesha aynu ummadda Soomaaliyeed maanta aynu naalo oo dhinac kasta aynu ka dayacnay waa ognahay saa daraadeed maanta baahi uma qabno aynu gabdhaheena intaynu qaawino aynu banaan dhaana ordaygo qaawan oo cawradoodii iyo foolxumadoodii iyo waxa weeyaan maartay cawradoodii ay muuqanayso runtii waa arin aad iyo aad quruxdii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay asturnaato in banaanka loo soo saaro cidda ka shaqeynaysa Ilaahay ka baqdo cidda ma taqaana faafinaysa Ilaahay ka baqdo iyaguna hablahaasina fariintan gaarsiinay waxay tahay Ilaahay ka baqa oo adduunkiina ku fasahaadinina waxa weeyaan waxa Ilaahay subhanahu hadad waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka maamulka iyo dadka mas'uuliyadda hayana fariintan u diraya waxay tahay dhaqaalahaas meel ka muhiimsan baynu uga baahannahay hawooyinkii iyo kuwii umulayay baa cidlada waxa weey banaanada ku dhimanaya oo isku raacaya dhaqaatiir ma haysano oo waxa weeyaan dad fuqara oo masaakiina oo gaajaysan oo saddex gelin oo cunto helin baa deegaanadeena iyo magaalooyinkeena ka buuxa waa inaynu kuwa wax tarno oo kuwa isgarab taagno oo caawino meelahaas wax weey walaalayaal baahida lacagta aynu ku bixino soo ifbaxday oo magaalada Hargeysa la yiri gabdho Soomaaliyeed muslimaad ah asturnaa oo guryaha inoo joogay waa kubad lagu ciyaarsiinaya sawir laga soo qaadayo iyaga oo wata shaarad ama waxaan leeyahay garamado iyo surwaal ku dhagsan iyo khamaaro kuwii caruurta ay xiran jireen oo kale ah leeyahay gobol kala duwan baa laga soo aruuriyay xaqiiqadeedana Ilaahay og yahay goboladaas inay ka tageen iyo in kale munkar iyo macsiyo kastaana marka waqtigiisa uu joogo in laga hadlaa waa waajib waana daruuri weeye munkar kale oo jira iyo macsiyo kale oo jirta oo aan laga hadlinna kuma xidhna munkarka iyo macsiyadaas marka in laga hadlo kubadda cagtu sideedaba mashaakilkeeda iyo dhibaatooyinka ay caalamka ku hayso iyo midda inaga hadda aynu ugu haysaba waa farabadan tahay oo isu sheegi mayno markay jimicsi iyo waxa la yiraahdo yoolka ugu muhiimsan oo ah qofku inuu ku jimicsado ay dhaafto ay baashu khamaar iyo tartanno iyo tacassub iyo wax la mid ay gasho taasi hadda isu sheegi mayno waa farabadan tahay qofkii aan aqoon wax badan buu ka akhrin karaya hadduu internetka galo dhibaatooyinka faraha badan oo baashan ay ku hayso heerka qaabkan oo kala ah laga dhigay xeerarka waaweyn iyo waxa la yiraahdo lacagaha aadka u faraha badan lagu bixinayo waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta ah oo abaabulaya ciyaaraha noocan oo kala ah meelo badan oo inooga baahi badan inaynu wax ka abaabulna baa jira fuqaradii baa dhulka yaala waxa la waxaynu ku bixinaa ma jiraan iyaga qof kastaaba waxa la yiraahdo muruqmaalkiisa wuxuu kula soo baxo ayuu helaa dhakhtaradii baa inaga baahaysan oo maalin kastaba baahidoodii shacabka looga dhaxbaahaynaya inta yar oo loo qabto marka laga tago duruufihii kale oo dhaqaale ay ina haysata oo dadkan iyo deegaanka iyo dalkaba haysata iyadana warkeeda wada socotaan waxyaabo kale oo farabadan oo dhibaato ah oo nolosha asaasiga ah ku saabsan oo ay ahaydin wax laga qabto kaabayaashii dhaqaale ku saabsan oo ahaydin wax laga qabto lagu bixiyo cashuurta laga qaadayo dadka dan yarta ah oo la rabay in iyaga dib wax loogu soo celiyo loogu noqdo wadooyinkii burbursan yihiin waxa la yiraahdo dhakhtaradii diyaar garowgoodii sidii la rabaa uusan ahayn tayadii aqooneed ay aad u dhiman tahay waxaas la inaga rabay inaynu wax ku bixino hagaajinta siyaasadda la dagaalanka musuqmaasuqa meelo badan baa waxay nooga baahan inaynu ku bixino gabdhaheena inoo asturnaa oo wanaaga iyo diinta iyo xijaabka inoo laha intaynu soo saaranno kaamarada la daba orodno garoomo u kirayno gobolka ka keenno kubad aysan diin ahaan wax uga faa'iideynin dhaqan ahaan wax uga faa'iideynin waxa la yiraahdo bulsho ahaan iyo ijtimaaciyan iyo society aan waxba uga faa'iideynin inaan wax iskaga bixino oo lagu qarash gareeyo oo lagu burburiyo dhaqaalihii dalka dadka ummadda cashuuraha deeqaha bini'aadamka muslimiinta iyo qeyrkood bayna soo gaarsiinayaan waxaan u arkaa inay xikmad darro tahay halaga waantoobo meelo badanba waxay nooga yaalaan dad caalamku waa ina dhaafay wax laynagu dhaafayna kubad maaha wax laynagu dhaafay waa aqoon waa tayo aqooneed waa tayo cilmi waa tayo mu'assasad dawladeed waa tayo mu'assasa aqooneed waxa la tayeeyo
waxa hal la tayeeyo markaas in ummadda gaari kareenna oo la tirsan kareenna laakiin ummadaha kaleba waxa uu iskaga faakihaystaan inaynu inagu intaynu soo qaadano horumar ka dhigano ee horumar oo kale u qaadana inay tahay ama layna ugu khasbayo oo hay'ada iyo gamco dibadda inaga imanaya inagu khasbayaan wax inaga inoo qalma maaha diin ahaana inooguma qalmaan dhaqan ahaana inooguma qalmaan waxaan fariin u dirayaa culimada waxa la yiraahdo meel kasta ay joogaan iyo gobol kasta ay joogaan dadka dhaqanka odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta ilmaada rayaal diintan dadkan waxay naga saaran iyo diintan iyo dalkan mas'uuliyad baa inaga saaran mas'uuliyadda inaga saaran waxa weeyaan wanaaga inaynu u soo jiidno xumaantana inaynu ka hor istaagno way fara badan yihiin xumaanuhu kuma soo koobayo kali ah gabdho kubad loo qabtay kuwii ka horeeyay baad ogeydeen wixii dhib ka dhacay isqabqabsigii wixii qabyaalad ka dhalatay wixii waxa la yiraahdo muran iyo dhagax iyo xabad isku ridayay ka dhalatay waxa soo dhanba waad ogeydeen marka kana kama waxa la yiraahdo kama nasito wax badan soo kordhinayo kalena ma jiro waba ka sii hooseeyaa oo dacawrooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo faray gabdhaheena iyo hooyooyinkeena walaalaheen inaynu asturno umba banaanka la keenayo wiilal kamarad inta la daba wataan caalamkii oo dhan ay tusayaan